youtuberkan isaga iyo familkiisa ayaa waxay u baxeen dalxiis waxayna dalxiis ugu baxeen kaynta laakiin in yar kadib waxaaba dhacday inay arkaan dab soo socda ama soo holacaya arrin la yaab leh ayayna ku noqotay waxa uu ka dhex kacay kaynta dhexdeeda dhirta markiiba familka waxa ay go'aansadeen inay meesha si degdeg ah uga baxaan laakiin nasiib wanaag cidna ma uusan wax gaadhsiin dabka ka dhex kacay kayntan dhacdadan aadka u la yaabka badan waxay dhacday sanadii 2018 youtuberkan oo gaadhigiis ku dhex jira kaamiradiisana u shidan yihiin ayaa waxaa gudaha ugu soo galay rag kuwaas oo baxsanayay kuna amray inuu meesha kala cararo markii ay ku amreen inuu meesha kala baxsado waxa uu caddaatay inay yihiin tuug ka soo baxsaday askar si aanay naftiisu khatar u gelin ama aysan u soo weerarin waa inuu meesha kala dhaqaaqaa App says I'm going to Richmond. Yeah, so? Are you sure you're Andy? Yeah, we're Andy. Let's go. Just fucking drive. Dude, I know what you're doing. I can't. Man, just fucking let's go. inaadu naxdin badan ayaa dhacday tuugtu waxay ku baraarugeen in uu gaadhiga kaamarad ugu xidhan tahay Yeah, easy. In and out, 45 seconds. Boom. No questions asked. Hold on, mate. I'm gonna call you back in a second. Wait, is that fucking thing on? Battery's dead, man. Nah. I'm pretty sure it's on, mate. Are you fucking joking? Are you fucking joking? I'm driving. Fucking douchebag. laakiin waa uu ka caqli badiyey waxa uu geeyey saldhig boolis iyaguna ma aysan badbaadin isagana kaamiradiisii way u badbaaday Why are you going this way? This is how you get to. ninkan lagu magacaabo Vital waxa uu ku kacaa ficilo naftiisa xitaa khatar gelin kara waxaana ka mid ahaa kuwan oo kale ninkan dibigii ayaa weerar aad u baan kusoo qaaday geesihiisa waana uu ku joogsaday laakiin nasiib wanaag qof ag taagan ayaa ka badbaadiyey oo dibiga ka mashquuliyey oo ka soo jeediyey Aris waxay ku nooshahay guri kaas oo ku dhow kaynta marar badan waxaa kaynta kaga soo baxaa dubka madow kaas oo yimaada guriga agtiisa muuqaalo badan ayayna ka qaaday dhibaatooyin badan ayaa una halkaasi ka geystay iyada oo gurigeeda iyo asxaabta wada joogaan ayuu muuqaalo iska qaadeen ayaa waxay arkeen dubka madow oo daaqada isku dayay inuu ka soo galo dhacdadani waxay dhacday sanadkii 2017 waxayna ku dhacday Cohen Hernandez Cohen waxa uu caan ku ahaa gameka waxaana ku ciyaari jiray gameka